tani waa qiso jacayl oo xanuun badan. sheekooyinka jacaylka qaarkood markii laga sheekeeyo waa kuwa qasbayo in qofkii aad jacayleed aadan aaminin. ka waran haddii gabadhii aad 4 sano wada socoteen oo sida dhabta aad u jecleed aad gacantaada nin kale u geyso waliba uu la tunto adiga oo wax ka qoba karin. tani waa sheeko xanuun badan oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waliba asbuucii la soo dhaafay. waxaan ka codsanayaa inaad boggan Suuriyaan fal u dhahato sina share gareeda muuqaalka si uu gaaro bahda jacaylka. haddii si aan gudagalo qisadan murugada leh waxay ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo ahaa darawal mooto bajaaj ku nool magaalada Muqdisho. waxaa lagu magacaabaa Ismaaciil. asaawo iyo jacayl ayaa kala dhaxeeyay gabar magaceeda aan ku soo koobnay Naciimo, laakiin magaceeda runta uusan ahayn. wuxuu ahaa wehel meel walba ay u baahato ayuu geyn jiray. habeenada qaar wuxuu keeni jiray hadiyado lama filaan ah iyo waliba cuntooyin kala duwan. asaawuhu wuxuu si qurux badnaadaba Ismaaciil gabadhan dhan walba waa uu ka helay, wuxuuna soo bandhigtay guur. bilihii ugu dambeeyay ee ballantu ahayd inay isguursadaan habeenada kamid ah ayaa Ismaaciil u noqotay habeenkii noloshiisa oo dhan mugdiga gelisay. Ismaaciil wuxuu saaxiib dhow la ahaa wiil uusan akhlaaq badan ku ogeyn balse bulsho ahaan ay deegaanka wadaagaan. wiilkaasi ayaa habeenada kamid ah ku wargeliyay Ismaaciil in hotel uu ka deganaa magaalada Muqdisho oo uu keeno adeeg maadaama uu mar walba adeeg u dirsan jiray. haddiise dib aan idin xasuusiyo Ismaaciil gabadha uu xushay waxa ay ahayd gabarhaas awgeedu kaliya uu ku ekaa albaabkii soo istaagto oo halka laga wada hadlo gudaha xitii uu soo gudbi jirin maadaama gabadhu ahayd gabar aad u xishood badan. ereyada macaan ee la isku turtuur albaabka hortiisa markii laga soo tago inta kale waxay ka dhamaysan jireen aaladda WhatsApp. adduunsa yeelkadeedii habeenada kamid ah ayaa Ismaaciil saaxiibkii ku wargeliyay guriga ay gabadhii deganeed inuu tago. tilmaan ahaan uu aqoonsaday halka tag ayaa lagu yiri 3 saac oo habeenimo kana soo qaad xabad shidan oo halka joogto oo rabo inuu waqti la qaato. Ismaaciil halhaleel ayuu u baxay balse lama siin lambarka gabadha uu doonay, balse taleefanka saaxiibkii ayaa laga hagaayay. Ismaaciil markuu gaaray goobtii ayuu wacay saaxiibkii wuxuuna ku wargeliyay inuu joogo halkii. wax yar kadib gabar xijaaban oo nishareer wadatay ayaa soo kortay gaarigii halka ayuu ka soo qaaday. aad ayuu uga shakiyay gabadha maadaama guriga ay ka soo baxday uu ku ogaa gabar ay saaxiib ahaayeen oo jacayl kala dhaxeeyay. si uu su'aal u weydiiyo ayuu garan waayay maadaama uu aad u shakisanaa. intii uu sii waday wuxuu ahaa mid walwalsan gacmaha ka jaraynayo. wuxuu geeyay hotel kamid ah hoteelada lagu caweeyay magaalada Muqdisho oo Ismaaciil saaxiibkii uu joogay. maxaase dhacay daawade si aad qaybta labaad oo qaybtan ka sii xiiso badan ula socoto boggan follow dhaho sina share garee muuqaalka.